kuwan waa markii lagu qabtay ciyaartooyda khiyaanooyin Allah laakiin walaalka ayagoo kala noqon assalaamu calaykum asxaabay ku soo dhawaada muuqaalkeena YouTube maanta iyo muuqaal xaraaradiisa wata هيا بنا dabcan sheegan lagu soo tuuray garoonka dhexdiisa wuxuu muuqdaa waxaan dhibaato aan lahayn laakiin ciyaaryahankan ayaa isku dhuftay si loogu dhigo khalad Allah markuu khalad ku galay weeryahankan ayuu goolahayan iska dhigay mid miyir beelay si uga badbaado kaarka cad ama roosaha ajaayib shaqo ciyaaryahankan wuxuu kubadii ku soo celiyayba gacanta laakiin waxa la yaab leh inuusan garsooruhu u jeedin ajaayib shaqo habka ugu wanaagsan ee looga badbaado kaarka casaanka ahi waa in la xado kaarka inta uusan bixin garsooruhu Allah Lionel Messi goolkan ayuu dhali ka waran isagoo adeegsanay gacanta intuu isticmaali lahaa madaxa ajaayib shaqo mid ka mid ah orodyahannadan ayaa ka dhumay isku dheelitirnaantiisii jirhaneed taasoo keentay inuu ku dhago mid ka mid ah tartamayaashii awowna labaduba fursad ay u haysteen inay guuleystaan J.R. Smith ayaa xariga kabaha ka furfuraya David Howard ka hor inta aan la tuurin kubadda ajaayib shaqo goobaha lagu siisay orodyahanada biyaha markay daalaan ayna ku guda jiraan orodka ayaa mid ka mid ah orodyahannadan u arkay fursadii uu ku sii dhibaateen lahaa kuwa kale bal u fiirso ninkan ayaa sameeyay ficil yaab leh si uu ku fiidhigiisa isagoo ku tuuriya shay si uu dhima xawaarihiisa Allah markii Antonio Brown uu sameeyay ficil ah inuu haraati isticmaalo si uu wadada u banaysto qofna kuma baraarugin ficilka uu sameeyay Antonio waxa cajiib ah in goolahayaashu ay sameeyaan ficil kasta oo ay ku badbaadin karaan rigoorada sida goolahayaan lagu magacaabo Marvin Hittis kaas oo sameeyay ficil ah inuu qodogod agagaarka goobta laga tuuranayo rigoorada si uu ugu kufo ciyaaryahanka taasina uu suurto gashay oo wuxuu ku guuleystayba inuu badbaadiyo rigoorada Allah laacibkan kubadda uma wajeedaba kan ayuu la daba galayba in wax ku dhufto kana markii dambe ayuu dareemay xanuunka Allah goolahayaan waxa la siiyay dabcan calaamadii digniinta ee jaalaha laakiin waaba ismashquuliyaba isagoo waliba gadaal isku tuuraya si madidaalo leh Allah dadka qaar lama daaro lama doonto lama dulmiyo ficilada doqonnimada ahi waxa kamid ah inaad qof saaran mooto aad la turtid haddaba mootolahan buluuga ahi waa khiyaano weyn oo waxa lagu magacaabaa Romano Finati oo ninkan wuxuu caan ku yahayba khiyaanada ha ahaato haraatida qaylo am xitaa inuu tuuro dhigiisa game over malaha ciyaarta ma ahan ciyaarta aad jeclaan lahayd inaad hesho haddaad maalin u doonisid inaad noqoto aabe kubadda cagta farsamo iyo xirfad ayaa la isku khiyaamaa laakiin Mbappe kulaha saaxiib markan kaliya iga yeela goolkan ajaayib shaqo halka ciyaaryahanka lagu magacaabo Feltman waxa uu sameeyay ay tahay khiyaano xirfadeysan oo kubadda cagta walgo gal yahayba Allah ya ilaahi wixii Mario Mansugu ku dhacay ayaan la yaabay suxul aan caadihiin ayaa ku dhacay rosa lisiiba kiiba Allah hadii ay kubaddii banaanka u baxday maxaad u dhaqaajinaysaa xariiqda tani waa waxa aad kaliya sameyn karto ciyaarta leeliska ama volleyballka qalad ayaa lagu galay laakiin David Luiz qosol ayuu la dhacayba sidoo qof kasta u doqonsaday Allah oo ciyaaryahanka wuxuu daba socdaa Marcelo malaha khalad ayaa la dhigay Marcelo caloosha ayuu ku dhuftay ciyaaryahankiiba isagiiba si dhacayba Allah malaha tani waxay noqon lahayd badbaadin inaba caadi ahayn isagoo u suurto gashay inuu ku badbaadiyo goolka gacanta laakiin maxay dhashay Allah tani waa tusaalaha dhabta ah marka doonaysa rigoore balse meel khaldan aad ku dhacdo faraha la taabsi waa isturale Allah hadda qaladkan caad ee qofka soo jeedo garsooruhu ma jeedo ka waran ciyaarta ayaa la sii socodsiiyay dabcan LeBron waa ciyaartoy heer sare ah saas taraadid markuu rabo inuu rigoore helo waa sideen oo kale macnaha uu isturaya waxaan arki jirnay ciyaartoy kale wax ku dhufata oo khalad laga dhigo balse kan gacanta dhigiisa ayuu isku dhuftayba Allah dadka qaar magacooda ayaa ah mid looga dhex yaqaano saaxadda ciyaaraha maadaama ay wax kasta ku kuuleysteen halka dadka qaarna ay doonayaan inay wadadaas raacaan ayagoo u maraya qaab khiyaamo ah dabcan yaa ka hadlina Romano Finati kaasoo haddan ka soo hadalnay sabab laakiin dabcan waxay sala tamayaan mootolahan wuxuu isku day inuu break u qabto ayagoona ku socdo xawaaradan 140 mil saacadiiba waxaan dhihi karaa waa khiyaamo sababi kartay waxyeelo aad u nasiib wanaag uma aysan suurto galin isku daygiisii malaha waxaad sileedahay talaabo laga ma qaadin waa laga qaaday waxaana ganaaxay kooxdiisii ficilkii uu sameeyay dartiis waxaa shaki ku jiray hibada Neymar laakiin kubadda laga qaatay dhulka ayuu isku tuurayba yaa Neymar Allah dabcan goolahayan kubadda ayuu qabsaday xogaana waqtiga ayuu dhuminayaa laakiin kana haraati ku kiciyay maxaa ka raacay iga qabsanay fow ajaayib shaqo tan waa ka caadi ciyaarta NFL-ka laakiin ciyaarta baseball-ka saas oo dhan ma ahan waxay rabtay inay ka ciriirsato leenka si ay u hogaamiso tartanka oo waxayba ku sii adkaysatayba isku daygeedii ah ciriirsiga laakiin maxaa ka raacay Allah ciyaaryahankan waxa lagu galay khalad oo dhulka ayuu ku dhacayba waa Immobile dabcan waxa soo gaaray dhaawac balse goolka ay dhaliyeen ayaa ka saaray meeshii dhaawacii uu tabanayay Allah
waxay u muuqataa ciyaaryahanka u dheelay naadiga Miami Dolphins inuu dhulkaas kaga dhacay balse markii dib loo eegay waxa la ogaaday xaajigan inuu jilaafo u dhigay waana la ceeriyay waxaan lagu ganaaxay $25,000 ciyaartooydu badanaa waxay isku tuuraan xirada ganaaxa si ay u helaan rigoore balse goolahayaha muxuu ka faa'iidayaa inuu sameeyo sidaan cajaa'ib sheekhow haddaad u malayso ciyaaraha ragga inay yihiin kuwa kaliya wax isku dhufto saaxiib sooga ciyaaraha dumarka waa top level Allah Russell Westbrook wax kasta ayuu sameeyay sidoo kooxdiisa uga badbaadin lahaa gooldaro isagoo xitaa waji ka rarbaaxay dhigiisa mar hore ayaa idin sheegay walaalka ciyaaraha dumarka soo daawada waaba madaalo socotaba oo indhaha aad ka leexin karinba Allah yaa ilaahi LeBron intuu silaha dhigaaga wax dharbaxa ku xad ayuu saaxiibkiis ku dhuftayba isagii ayaaba yaabayba 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 dabcan goolahayuu soo baxsanaa shaqaale goob joogi ayaaba ka difaacaya kooxdu taageero in laga dhali gool waxa ka raacay waa iska daba jaray car isoo qabtay ka dhacday ajaayib sheekhow dabcan goolahayuu ma uusan taaban kubadda saas oo taana xeeladii Ronaldinho jaal ayaa lagu siiyay Allah ciyaaryahankan waxa lagu magacaabay Bradley Beal wuxuu isku tuurayba xeerada ganaaxa haddaba u fiirso isaga ayaa istuuray kadib ficlintiisa eeg markii loo dhigay rigoore Allah kadib markii ciyaaryahankan Taj Gibson ay ka baxday kabta ciyaarta dhexdeeda ayuba wuxuu isticmaalayba istiraatiijiyad difaac Allah maalintii sidaan uu adduunka tusay inaan lagu soo degdegi karin Allah yaa Zizou maada facalt malaha tan maxirfad ay ka ahayd mise doqonnimo guul ku soo dhamaatay ay ka ahayd adigu uun go'aami Allah tan baas mii ka ahayd maya malaha isaga ayuu ugu dan lahaaba oo xog ayuu ugu dhuftay wakaas oo saaxiibkiisa soo ordayba ajaayib sheekhow mararka qaar kubadaha shoodka ah si kama ku dhaca waxaad u malaysaaba mid lagu dan lahaaba wala ciyaaryahankan waxa ku dhacay ajaayib sheekhow ma huwa taakada loo dhigay inay aad u darneed balse qaabka dhulka loo galgashay ayaaba ajaayib ah inuu jaasi aad u malaysaaba Allah Andre Wiggins kaliya gool ma dhaline mid buu haraatiyay ayay Allah malaha kaas wuxuu ahaa kan kaliya ay ka difaaci kari goolka laakiin haraati loo qariyay haddaad maqasho qof faa'iistuuray isagoo aan la taaban kan ayaa tusaale kugu filan ogowna kubadii ayuu ku soo dhacayba Allah yaa ilaahi ayara loo taaftay dhulku isku tuurayba ajaayib sheekhow goolahayaan sixir ayuu ku aastay birta hoosteeda si aan gool looga dhalin laakiin waa lagu fahmay oo ciyaaryahankan ayaa ka soo bixiyay isagoo la ordayay ayuuna banaanka keenay ajaayib sheekhow Marcus Morris kama helin qaab difaaceedkan sidaas awgeed ayuu madaxa ugu dhuftay Justin Anderson kaas oo isku dhex yaacay meel laga jiro ayuu garan waayayba Allah tan miyuu u dan lahaa mise kama ay ka ahayd ajaayib sheekhow markaad ciyaarta hogaaminaysaan daqiiqada ugu dambeeyana ay tahay ilbiriqsi kasta oo aad lumisid waxaad u dhowdahay guusha saddexda weeryahan ayaa helay fursad furan dabcan way adagtahay in laga qabto balse war aniga ii daayay yeeli maayo ayaa ka dhacday ajaayib sheekhow qaabka in loogu baaso dhigaaga waa mid heer sare leh Allah